السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Elliot Wave Adjust alaaba waqtigan oo kale maalinta axada habeenka isniinta ay soo galayso saacadu markay tahay 2 saac bar habeenimo waxaan si live ah u soo galnaa barteena YouTube-ka anagoo ka soo galnaa dhinaca Telegram-ka videogan hadda waa live kadibna waxaan asagoo recording soo gelinaa dhinaca YouTube-ka insha Allah alaab waxaan ku eegnaa wiiga soo socda suuqa waxyaabaha laga filayo ama lacagaha inay dhaqaaqaan la rajeynayo sidoo kale nagu dib u eegaynaa wiigi ka horeeya wiigan lacagii aan soo analyze gareynay iyo qaabkii ay noqdeen intaan analyze-ka iyo waxyaabaha soo gelin insha Allah waxaa jirto inaan qabanno koorsada bil kasta dufcad cusub qaybta registration markaad joogtid waxaa jirto maxaa la yiraahdaa features fara badan marka hore qof bilow ah ama suuqan forex ku cusub anaga ma qabanno sababtoo ah qofku markuu cusub yahay wax kasta ama cilmi kasta aad bartid kuma filna oo wax buu raadinaya waxba ka maqan sidaa darteed waxaa ugu talagalnay qofka inuu hordhac fiican haysto oo muddo horta suuqan soo dhaxmaro oo cagta soo mariyo sida inuu soo tijaabiyo istiraatiijiyooyin kala duwan inuu ugu yaraan real account soo furtay oo lacagtiisa oo realka ah oo suuqa la galay oo xaqiiqada suuqa soo arkay because qofku markuu cusub yahay expectation fara badan ayuu qabaa oo suuqan suuq si fudud looga taajirayo ayuu u haystaa sidaa darteed qofku waan soo qanacnaa markuu muddo soo wareero oo ugu yaraan akooma soo gowo xitaa waxbuu fahamsan yahay qofkaas waxbaa la bari karaa sidoo kale wuxuu kala ogaan karaa farqiga u dhexeeya wixii uu hore u yaqaanay iyo waxa cusub oo baranayo iyo waxyaabaha dhan ay u kala duwan yihiin it's simple marka sidaas ugu talagalnay qofka waxba hore xiisada ugu bilaabno waxaan dhahnaa training fara badan soo qaado marka hore intaas kadib markuu inoo soo laabto waxaan sameynaa inaan u soo dirno qaybtan resourceska inta website-keena soo boqdo qaybtan Elliot Wave Theory because anaga xoogeena ugu badan waxaan iskugu geynaa waa wave analyze-ka isaga mabino ah qofka qaybtan page-kan hordhacay u noqonaysa marka inuu Elliot Wave Theory wax laga wado iyo wax walba ku saabsan uu soo barto sida history inuu soo arko waxa la yiraahdaa asalkiisa meesha ka yimaado soo ogaado patterns kala duwan inuu soo ogaado asalka classical patterns meesha ka yimaadeen inay wave analyze tahay inuu soo ogaado oo dadku badanaa maanta waxay ku tirtirayaan waxa waaye classical patterns asalkooda meesha ayay ka yimaadeen iyo sababta ku yimaadeen qofka marka hore la fahansiiyaa kadib waxaa la baraa maxaa la yiraahdaa motive wave-yadii correctionski Fibonacci waxyaabahaas suuqan because suuqadan waxay ku socdaan wax xisaabaad suuqa dhan aad arkaysaan waa probability iyo math kaliya wax iska socda oo tool meel yaala inta la soo qaato waxa la yiraahdaa ama meel lagu sawiro suuqa kuma shaqeeyo dabcan marka xisaabtaas iyo asalkeeda waxay tahay qofka barnaa kadib waxaan barnaa magacyadooda kala duwan ay leeyihiin kadib qofku waxaa barnaa maxaa la yiraahdaa Elliot Wave cusub kii hore iyo kan cusub waxay u kala duwan yihiin farqiga tusinaa labadaba waan barnaa kadib waxaan barnaa qofka maxaa la yiraahdaa systemka aan ku tareen kareyno because Elliot Wave strategy maaha wala waa map waxaas dhan aad baranaysid mapki iyo suuqa sida u shaqeeya soo baranaysaa laakiin suuqi meesha gal leeyahay iyo waxyaabaha ay kala cilmiga kala ama strateejiyada oo complete ah kadib qofku uu darnaa website-kan intaas uu qaabilsan yahay kaliya ama sababta qofku wax uusan arkeenin wax bilow forex maxaa waaye oo kale ama candle maxaa la yiraahdaa oo kale waxyaalahaas ku arki maysid is why qof advanced kaliya aan nagu qabanayno perfect inta dad ila fahanteen qaybtan registration qofkii maana waxba isagoo usan ku dheeraanaynin
education-ka markaas qofku markuu cilmigaas kala soo fahmo fiidooyo jira sidoo kale oo taxanayaal ah oo marmar la soo geliyo macallimiin kala duwan qaybtan free education-ka waad soo daabanaysaa isagan intaad isdiiwaan gelin still waxaad ku jirtaa barashada iyo OBU guud waa cashiro meeshan ku jiro cashiradan soo daabo dabcan waa YouTube-keena qaybtan aad ku dhex daawan kartaa ama toos YouTube-ka u tagi kartaa insha Allah kuwana xagaas waxay ahaayeen article kaliya iyo qoraallo ayadoo muuqaal ah oo Soomaali lagu sharaxay meeshan ku jira sidoo kale website-ka Mogaan 12 luqadood ayuu leeyahay aanay luqadda ku fudud waad isticmaali kartaa articles-an soo gelinaa على هذا قرالة دادير عادي سوق لنا مرمر أو فرصة سوق قصابسن أما العجاء وقتي دادير قصابسن حيوان صدق أنا اللغة ده أوبا أنت بدل اللي كرتها طبعا سأدي توجدا حيوان هذا المركب وبساتك أنا بيت وكجرو مهم يكويه مركب صدقها مركب لوضع مال ومين سنة تجي ستة أوراق وشغل وحواي اللي بيثيوريا إيو قيبتها في الإدكيشن كي تسمع كاتسوق كانت بعد الله هو كل فريه تطبع أنت هاي وإزديوان كلي كرتا هذيك اللي ترى دي بقى يا حوس ما يكرتا ريسيرش فربنا علمي جان أو هربعي عاد هالشيء دي بقى يا أصيب بركرتا واجب ما ينام نجبرته لكن مهمة ده يا أصل كيو واحد استبيس اللي ينكون إلى دركتين علمي جسد فانس ده أقول أنت كذي وأنا ما نكرتا إن شاء الله education كان طبعا بالكستان قبلنا قفك ما أهان واحد لغرها على هذا one time payment ويا أكثر طبعا ما أهان واحد بالكست إسكتشو لغرها كورسات والبو هنسمعنا إن أنا أرتقي قبلنا بالكستا كم دور الكلية one time علمي قفك أنسينه فرطان كولا صارنا كذب علمي قفك مكو برتو وحقوق هي براتيك فربنا إنه وحين ليه كلا قبض السوق سيد الصحة هي ريال ماركت سيد اللي قد بقاي أو يبسكر قيمة بريميوم كي بروجا كون waa subscription fee dabcan oo bilaa qofka xilligu doono ibsakara saddex bil iska ibsakara dooro 6 bilood dooro 1 bil asaga aan kale laakiin kuma xijeenno qofka oo education markuu barto iyo kuwan kale inta isku xirna sidoo kale isku xirna inaad kuwan kaliya gelisto education kaaga gadanay oo kuwan premium kii broga waxa way jihooyinka suuqa wana warkii oo kala suuqan ku socdaa for warkii intuu socdaa daily time frame marka tagtid intuu socdaa weekly intuu socdaa waxa sanad ku ogaanaysaa waxaad sii saadaalinaa meesha uu aadi karo sanadka soo socda oo kale meesha aad ka filaysid ma aha wax short term ama dhowr bil maalin kasta inta soo gashay suuqa ka qabanaysid aad iskaga bixaysid dabcan orodkaas ma ko suuqan waa business kan wuxuu u baahan yahay maxaa la yidhahdaa waxaan waa lacag wadamo aan tirad garanayn lacag wadamada waay lacagahan marka haddaad taqaanid cilmigan oo wave analyse-ka waxaad ogaanaysaa lacagta waddan heblaayo inuu qiimaheeda kor aadayo ama inuu hoos aadayo waana wax weyn oo keliya kuma anficaysa xitaa inaad trader keliya tahay waxay ku anficaysaa si caadiyanba haddaad dibadaha kale oo ku nooshahay inaad lacagta waddankaaga iyo lacagta kale aad isku sarrifi kartid aad kala ogaan kartid xaaladda meesha ay marayso ama inay qaali noqon doonto ama inay raqiis noqon doonto kaliya forex anaga kuma egin oo commoditieska ku jiro goldgii silfarkii oilkii waxyaabahaasna way ku sii anfacayaan dabcan haddaad tahay qof waxaa la yidhahdaa si offline goldga ugu ganacsado oo kale waxaad sii ogaan kartaa sanadada soo socda ardada hadda nala joogto dabcan xiisadaha live-ka mararka qaar waxay ku arkaan in loo sii saadaalinayo waqti fog qiimaha gold meesha uu sii gaari karo si uu qofkan hadda lacag uu dahab iibsado 2 sano ama 3 years kadib meesha uu gaari karo qofkan si fursad ugu sii haysto inuu sii ogaado mujada because gold 2015 meesha uu tagnay had meel gasay soo maraa $3 soo qiimihiisa ahay maanta uu marayo ka soo qaad $58 ama 60 after 2 years waxa laga yaabaa inuu sii siyaado Soomaa ama 80 sii gaaro ama qiimihiisa inuu soo dhacayo oo kale waxyaabahaas dhan waa lagu sharaxaa si fiican oo fahmaysaa because waxaan waa sarif ma ahan charts ka qalan aad arkaysaan maalin la keenso intuu aad lahaay wax iska socda ama game ma ahan waa xaqiiq real market ka ama suuqyada caalamiga wax ka dhex socda waa meeshan waa shaqo toos u socota
laakiin dadku saas uma fahansana holding candlekaas ay u jeedaan inuu mar kor aadayo mar hoos aadayo game camal ay u haystaan bravo haddaan intaas ugu gudbo hordhacaas dheer karaale ahaada dabcan course educationka waxaa socda diiwaangelinta way socotaa wixii 5 January ka bacdi ay bilaaban doontaa insha Allah maxaa la yiraahdaa xiisadaha tooska ah ardadu dabcan markii 30 arday kor u dhaafaya waxaan sameynaa si leef inay u waataan oo macalinka si toos ugu soo galo haddii ay geedayna waxaan sameynaa dafcad kasta dafcad ay ka horeyso fiidiyowada duubnaay ayaa la siiyaa ayagoo recording qofka ayuu daawanaya dabcan asagoo lagu controlayo oo markasta 10 kasta su'aalo jawaabo wata ardaygana sidoo kale waa la weydiinayaa wuxuu u baahan macallinku weydiinaya inta sida ugu gudbo waxa focus inoo saaran caawa waa la yiraa lacagaha yeenka laakiin yeenka intaan gelin waxaa ka horeeyay weeyga ina soo dhaafay inaan soo eegnay ama aan soo analyze garaynay lacagihii dollarka ayaan dib u eegaynaa kadib ayaan yeen ku soo laaban doonaa insha Allah dabcan weeyga hore dollarku wuxuu inoo marayay qiimihiisa meelahan oo kale 89 meelahan oo kale suuqa marayay waxaan ka rajaynayaa horta direction suuqa waa bearish forward markaan taaganahay direction suuqa waan ognahay waa bearish dabcan trend ayaa socda suuqa si aan uga qayb qaadano marka waxaan u baahanahay inaan ogaano inuu dhamaaday in kale aan iska xaqiijino kadibna qaabkii looga faa'iideysanayay ama xaaladda suuqa uu taagan yahay inta qiimaha uu marayo ku qiimeeno ama structure-ka uu sameynayo inaan jihad xigtaan u saadaalino we know it structure-kan horta ma uusan dhamaanin dabcan markaan si wasanka ama qaabku ku socdo suuqa aan eegno ma uusan dhamaanin suuqan still jihadii waa bearish weeyga hore waxaan dhahnay dabcan ani bullback uu soo sameeyo suuqa direction waa bearish inuu sii daataan rajaynaynaa ani bullback uu soo sameeyo suuqa insha Allah waa uu sii daadanaya balanteenu ahayd ama sidaas ayaan ka filaynay perfect suuqi bullback waa uu soo sameeyay reaction video gori waa soo daaban kartaa insha Allah YouTube ku jira bullback suuqa waa uu sameeyay dabcan suuqa laba mid ayaa u banaan horta waxaan aan bixinayno ila fahma ma aha signal sidoo kale ma aha sadar only waa direction waxaan ku siinaynaa wadada high probability path-ka ee suuqa laga filayo sidaa darteed midda kale waad iska ilaalinaysaa simple like that hada suuqu waa bearish inaad bullish gareysid lacagaha dollarka waa iska ilaalinaysaa aslanka sidaa samaysid safe aad doontaa insha Allah perfect dollar lawo midkood ayuu bearish ku aadayaa sidan uu yahay correction-kan 17 December 31 December socday inuu sidaas uu ku dhamaaday correction-kaas uu ku filan yahay oo sii daada doono waa wadada koowaad another step waxay tahay one more high inuu sameeyo noocan oo kale correction-ka inuu weynaysto because correction-iska waa ay badan karaan 1 2 ilaa 3 ay gaari karaan dabcan this one waxaan rajaynaynaa anaga ahaan correction noocan inuu sameeyo ama inuu sii daato haddii la yiraahdo only direction waa bearish haddaad ku jirtid oo tusaale oo kale meelaha aad ka soo raacday dabcan riski free tahay ha ka foqin SL-ka kaliya waxaad kaysan tahay entry-ga inta kaleetana go'aanka suuqa u dhaaf labada wada ka filaynaa midda ugu weyn oo aan anaga isleenahay in this one duu soo noqo waayo lama yaabi doono because awalba suuqa bearish ayuu ahaa simple like that structure-ka ayaan iska quruxsanaynaa maahane ama correction-kan ayaa quruxdiisa ayaan raacaynaa maahane direction already waa bearish kaliya isku baa galeen insha Allah this one aynu rajaynaa insha Allah DXY ama lacagta dollarka lacagta xigta waa USD CAD dabcan ayadana waa dollar ayaa hogaaminaya sidaa darteed ayadana waa bearish inawi rajaynayna structure noocan inay sameyso correction-kaasi oo correction qurux badan oo u noqdo kadib USD CAD inay sii daawato insha Allah simple like that ayadana structure-kan ayaan ka filaynaa dabcan isku bay galeen hadduu bullish noqonayo xitaa waa wax yar oo short term ah si uu structure noocan u sameeyo
كدبنا سوق نسيت تكرجينا إن شاء الله simple JBBUSD عن كرجينا طبعا سوقات تلابوك وهذا هلا يعرسوني هذا وحنا رأينا correction تسميه ويجهد طبعا كده سوقنا بولش سي اي حنكفلنا دول ليرة بولش إنه قصي صعدة it can be extended لكن بولش كيس إنه سببنا يرجعنا كده correction يرى سوق السوقات correction في عندها كده من بولش معناه لو حتى جهاد السوق هو بولش شو سكوسي الجراني مهمة واتاز correction كان أما استراكتر كان عن سيد عنو سميه أو سيد على دقائق حل قدونا يودع كراسوقا حرجنا سايكل صوب باللاوي سبتمبر إنه دمار that's why أن بول باك كان أما correction كان عنو سميننا كوست تحنا يسوق السعودة أنا بول باك ماركة أو في عن أما correction سيد عنو كل أقرب بعد هذا هالشيء وصيب باي كريكرتا لكن هذا وقت الحال كان تاجني هاي there's no way أكون باي كريسيد أما أكون سيل كريسيد هسكت طبعا أصلاً تقول بق نوعاً أكيشي كبعض فرصات كبار كرتا anyway حنقفلنا جهاد وبولش أنا أقول بق وصل سماه إذا درت هسكت سيل كريني simple NZD/USD دركش هو بولش طبعاً رجعنا still بولش إنه كوسي سؤال كوسي سؤالنا يا اللهم كان كوبا automatic sida uu ku socdo suuqan inuu kor u sii aado midda xigta inuu correction soo weenaysto kadib bullish this one aynu rajaynayna marka nag correction kan aynu rajaynayna suuq structure kan noogu noqdo structure fiican ama correction dhameystiran as long bull bag noocan aad ka heshid ama correction noocan waad sii bay garay kartaa waa leeyahay oo haddii istaraatiijiyada ku waafaqo AUD/USD sidoo kale jihadu waa bullish isku soo garanay laakiin correction noocan ayaa ka filaynaa dabcan ayadana kadibna bullish ayaan correction ka gadaal aan u sameynayo ka micno ma ahan inay waajib ku tahay suuqina sameeyo because jihada walba waa bullish sida automatic correction kaliya uu ku filnaa karaa kadibna suuqu uu sii socon karaa because jihada walba bullish ayay sidaa darteed marka jihada waa bullish isku seel gareynay inaad baa gareysid ma ahane wadada kaliya aad ku noqonaysid perfect Euro/USD sidoo kale jihadu waa bullish correction ka qorxoon yahay kuwa kale this one قام نوعنا وصل على إن شاء الله أصلاً كرش كان وسميا بورش مسيا ذكر جنينا لكن الاستراتيجية كان هو عن حياتها وسيا this one سيمبل وعنو بلا أنت سميسو كذب لا كرسيان Euro/USD أسكو سيل جنينا because نسينا ذا النير هو شرط التيرمون واحد بقلبي بيقول حاسة لكن هنا سمسوا معقول هنا سمنوا معقول لكن جهاد وين هو بولش كفرصة وين يا مركز تمهيم سن مدى ير انت غير سنيسي سوما perfect I think العيا ضر الكليري تصحيح وعد أنا سا anyway دولار إنه still ضعيف فيها و strong ahead لكن strength ير si uu correctionadan u sameeyo inuu helo waa possible laakiin la socda sidoo kale sanad ayaa sii dhamaanaya suuqana dabcan kuma xirna waxa la yiraahdaa waqti cayiman inuu dhaqaaqo oo kale si dadka aaminsan yihiin sabab waxay ku leeyihiin bilhebel suuq si fiican u dhaqaaqaya bilhebelna suuq ma dhaqaaqayo kuma xirna waxa suuqa dabcan sida uu volatility ku helo ay ku xirantahay bil u cayban ma jirto
طبعا ardayda education-ka way fahamsan yihiin suuqa wuxuu ku socdaa wax cycles la yiraahdo cycleskaas as long ay u baahan yihiin maxaa la yiraahdaa masaafo dheer as long badan oo fursad badan waxaa jirta oo suuqa volatility ku helaya laakiin as long cyclekaas uu dhammaad ku dhow yahay ama nasiino uu galayo as long suuqaas volatility laan ay kasoo macquul tahay hadise news ku xirneen si dadka aaminsan yihiin news soo baxay ku leeyihiin suuqa news dhaqaajinaya waxaasna anaga kama taradireen ama ma aaminsaninba suuqa news inuu wado mujada newska awoodiisa waa halkaan dhalo inuu bootin karo koreen u qaadam hoos keeno cid ogna ma jirto mujada inuu hoos geelayo inuu kor u wadaayo cid ogna ma jirto qayb ayuu ka yahay volatility-ga asaga dabcan laakiin jiha cayiman inay aadayso iyo inaysan aadaynin kuma xiran inaad newskaasi soo ogaatid sidaa darteed marka sidoo kale haddartaan maadaama bangiyadu ay yihiin fasax ama ay ku jiraan maxaa la yidhahdaa boxing day oo kale maxaa la yidhahdaa sanad uu sii dhammaanayo suuqa volatility-giisa waxaa possible ah in si aan caadi ahayn uu yaraado sidoo kale waxaa possible ah si aan caadi ahayn suuqa volatility inuu sameeyo because bangiyo badan ayaa xiran oo fasax iskagu jiraan soo ma laakiin brokerska waqti kasta waa ay fasaxan yihiin markii laga reebo maalinta ay u yaqaanaan Christmaska oo hadda ku beegnayd 25 December aan soo dhaafnay Jimcaha aan soo dhaafnay iyo maalinta 1 January oo ayadana ku beegan maxaa la yiraahdaa Jimcaha soo socda insha Allah labadaas maalin waa maalmaha ay brokerada xiran yihiin iyo bangiyada laakiin inta kale suuqa fasaxdu ku jiro طبعا uu shaqeynaya suuqan ma xirna dadku laakiin suuq markasta waxay aaminsan yihiin as long hal yiraahda uu fasax jiro suuq inuu shaqeynayo suuqa markasta waa uu shaqeeyaa hadaad ogtahay hadaad ogeynba weegan dhigata uu shaqeeyaa laakiin adin maxaa kaa qarsoon aad arkeenin waxa kaa qarsoon aad serverki ayaa kaa qarsoon oo ku ogolaanaya inaad ogaatid because ay fasax ku jiraan trade view aad arkaysid ay weegan dhig fasax ku jiraan laakiin suuq waa uu shaqeynaya dabcan هذا سواء مرة كقارئ سوق ومركو سوق فرمه أتكو أركيسد إنه سوق جاب سمية جاب كاسر في الكود مو سوق من طبعا الشارتان مو سوق من because أيقو فسح هايا لكن سوق المسافة أيقو صجر سوق أتكو 92.5 وعسو قال يا دار كيسا 93 أنت قول حسنا على واحد كان لكو أركيني لكن أتكو أركيسد جاب كابكاس معناها وحتى أيوه ويجندي يجرينه لكن سوق واو سعودي كوس سوق ما هو كمبيوترز مركز تواش خانة أيه مين استاجان هذا سواء مع المها كله أو سوق أو أصلا أنا يبلوتيلي تفربنا because بنجيل وحيابي كلا شخينا يعني I think سبحان الله ساعتين أتفهم يسأل لأن بدك ساسو ما أمين سنة perfect دولار ده أنت سوق جدبه ولا دان ينكا على هذا المركب عجان ينكا ينكا هنقول مرة يا لعقت جي بي واي طبعا from سبتمبر كنا سوق الجديد هو بولش وشورت تيرم كنديلي كمان كان تجمع from March كنا سوق بولش يعني سيدا درتين sequence bullish السوق ولا because we know it structure كوضع كوس هذا فرا ورا كتر كوس الله تمركب هنكر جاينا السوق still bullish إنه كوس يسوق على الدولار جي بي واي structure نوعنا يعني كفيلا ياسي ولا ما يسترو cycle كابس تمبر طبعا كدينا correction المسوق أما الناس ينير كدينا bullish إنه كوس يسوق السوق taas maxaa kaaga cad darashu inuu bullish yahay isku soo gaareen marka JB way isku soo gaareen hadii sel soo aadane waa short term kaliya because suuqu correction ay u baahnanaya straight line ma aha ka sidaa darteed aanay bull bagad aragtid si bay garay waa hadii systemka uu ku wado darashu waa bullish isku soo gaareen simple scenario da aad helaysid ama cheat ka aad haysatid waxa tahay inaad sal gareenay
okay euro JPY sidoo kale ani pullback waa bullish cycle kan October ayaa socda ani pullback suuqa waa bullish asku sal gareyn dabcan correction kan qaabku doono u dheeraa karaa dabcan noocan oo kale inta noqdo structure noocan oo kale ah kadib suuq korsi yaadi karaa because correction kan waa u dheeraa karaa laakiin direction ka ayaa muhiim waa bullish anyway أنا محن رجعنا إنه correction سو سميه طبعا سو يرنستو شو أقرأ هو عمر كي هو يرات سدرت correction كيرا يوم تقدرنا لكن سيدا ما يتهاي قروا كسي هذه كرا طبعا structure كان يا اسمه ما تسيدا عنده بحكرة لكن structure كقرآن أو possible كأن كرجعنا إنه بعد السوا euro JPY bullish asku sel gareyn aslan kaada sel gareyn si faadanta insha Allah AUD JPY sidoo kale direction kuwa bullish طبعا kadibna upside structure noocan kala jeena because meeshan waxay noogu muuqdaa correction ama flat correction ayaan meeshan ka filaynaa طبعا flat waxa laga wada bacda aqoonin حاجرو 10 كسو غليه يوتيوب كا او كوركشنز كان كوسابسا طبعا فلاد وحو يحق اسك فهمنا ان شاء الله كوركشنز كان كبد yahay كوركشن معنا ان كرجينا ان شاء الله hadii kale automatically kurso ku siyaadi doona waxba u baahnaanin maxaa la yiraahdaa correction ka because this one kaliya oo ku filnaan kara sidaa darteed waxa ku cad direction kuna bullish yahay اسكو سل غرين كليه سيمبل انا سل غرين واي جيتك او وين اي دي جي بي واي ستراكشر نوعنا ان شاء الله يو اس دي جي بي واي العكت وحن السوق كوست ستراكشر كده ما روح بدنا لكن دايركشن كود هو بيرش كونسليشن وقت ده هي سكيل جرتا طبعا وسوق عن فلوتية فربض عنها لكن عن كرجنا أنا بقول باك أما أنا كوركشن ونوع عن أو سمايا المصيدات simple like that USD JPY نوع عن أو كلنا كوزيد هذا تو أيه ترتيب وساعة إن شاء الله accommodation إذا مسينا هنا تقدر تلسان كاب JPY طبعا ساقل أكتوبر ميلان كل ما ذي أنا وكوركشن كا أنا كوركشن وحن نوع أنا وسوق سمايا إنه صدق تابو جنينا كدبنا بولش سايت الروع أنا أي نور جنينا إن شاء الله كدبنا بولش نسيان because سيكون سبولش يسوق ولا طبعا أنا أدركيس from طبعا كي ديسمبر to now correction clear هو سيادرت هو شرطي بيرش كيسة أما إنها تسأل هو شرط تيرم كلية لكن جهاده وين هو بولش عضتها يقف ليه تريدنا أما محلي رأى في بيصير سوق كرهديو طبعا أصلاً كوركشن كان سوقه وسمايا واتسوسيال كريكستا كيرسكي هذا وأنا تقاضتها because correction كان جهاز سوقه يكوري معناه إنه قاب كان هو possible إنه يبيع وأنا possible سيدنا وياهي سوقه بيع كرا because أول بجهاز بقول شيء I think إن هذه الساعتين إن استراتيجي روحنا كرجينا إن شاء الله أصلاً استراتيجي معنا فوكسية بستي وقت هو نكسن أول بايجريا أو وقت جاز أما وقت يقوى عن تين بايجريس كاب JPY perfect I think وحنا نوم هارين ين كنا انت سايا كسوق هذا ألابا دولار كنا ونسلا إغني هنرجعنا يعني انت سوق الدبيو بدنا سنتين سوق مادام السحر ما يسند بنجيات نفسع يكون جران حالات الفيلين سيده هروب شرعنا كدعي كرتو
volatility fara badan ama mid yar taxadarka badiya insha allah harjana inta soo gabagabeeyay waa maasantihiin waxayna ballanaa wiiga xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu